السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena aan ugu talagalnay wararkii ugu dambeeyay Iran xaaladaha soo kordhay wararka degdega iska soo daba dhacaya. haddaba barnaamijkan wuxuu noqonayaa kii saddexaad ee aan ka sabayno Iran iyo weerarkeeda kadib. waan filayaa inaad si weyn uga hesheen barnaamijkii koobaad iyo kii labaad ee Iran weerarkan lagu qaaday aanu ka samaynay. haddaba kan saddexaad waxaan idinkugu hayaa macluumaad cusub oo soo kordhay. afhayeenka ciidanka ilaalada kacaanka Iran oo shir jaraa'id qabtay wuxuuna sheegay boqolaal ciidamada Mareykanka iyo kuwo Israa'iiliyiin ah inay dileen. haddaba sidee u dileen, maxayse ka yiraahdeen Mareykanka arikaas? haddaba tafaasiil ku saabsan sheekada waan idin hayaa. diyaaradda Netanyahu uu ku duulo ayay Al Jazeera waxay leedahay hawaday ku jirtaa. Netanyahu ma diyaaraddu ku gabanayaa ma cararay mise wax kala jira? iyana waxaan idin hayaa wararkii ugu dambeeyay. waxaa sidoo kale aan idiin soo gudbin doonaa awlaadda Iran oo hanjabaado kala duwan soo saaray lagana baqayo caawa inay nagta ka saaraan Tel Aviv, Haifa iyo goobo kale oo lagu kala cararay oo sawaariiqda Iran ay sida roobka ugu da'ayaan. warar kala duwan oo goosgoosa oo warbaahintu ay ka qoreen wararkii ugu dambeeyay iska soo daba dhacay iyana qaybta dambe ayaan ku faahfaahin doonaa. inta aan ku jirno warar cusub hadday soo dhacaana waad la socon doontaa. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamij kale oo ka mid ah wararka degdega ah ee ku saabsan dagaalka Iran iyo Mareykanka iyo Israa'iil u dhaxeeya. gobolkii oo dhan baa isla holcaya, wax diyaarado dhaqaaqaya ma jiraan oo maraya halkaas. Sacuudiga, Imaaraadka, Qatar kulligood waxay joojiyeen duulimaadyadii diyaaradaha. Kuwait, Bahrain wax airport oo diyaarad ka shaqeynaya ma jiraan. sheekooyin la yaab leh ayaa iska soo daba dhacay. haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay mid ayaan u falanqayn doonaa. wixii dhacay waxaa ka warbixiyay afhayeenka ciidanka ilaalada kacaanka Iran. haddaba telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay ciidanka ilaalada kacaanka Iran waxay sheegeen inay dileen boqolaal Mareykan ah iyo Israa'iiliyiin kadib markii Iran ay ka jawaabtay weerarka gardarrada ay lagu soo qaaday. afhayeenka xarunta ciidamada ee la yiraahdo Khatimul Anbiya ee taabacsan ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa shir jaraa'id qabtay wuxuuna sheegay in ciidamada Iran ay fuliyeen jawaab military oo ballaaran. waxaana uu sheegay weerarka gardarrada uu ku tilmaamay inuu ahaa mid cadowtinimo ah ay Mareykanka iyo Israa'iil aroortii saakay oo sabti ah ku soo qaadeen Iran. waxaana uu sheegay weerarka inay kaga jawaabeen iyaguna inay ka takhaluseen oo ay dileen boqolaal Mareykan iyo Israa'iiliyiin ah. afhayeenka ilaalada kacaanka Iran hadal uu saxaafadda ugu talagalay oo video ah oo la baahiyay ayaa waxaa lagu sheegay in Iran ay bartilmaameedsatay meelo kala duwan. waxaana uu sheegay in Iran ay ku tilmaantay Washington iyo Tel Aviv inay fahmi doonaan luqadda iyagu ay yaqaanaan, taasoo ay Iran iyaduna ay wax ugu qori doonto. mi'aad oo yiri waa boqolaal Mareykan iyo Israa'iiliyiin. marka wuxuu ula jeedaa meelihii ay khaliijka ka duqeeyeen oo dhan waa meelo Mareykan ku deganaa. horta wararkii ugu dambeeyay aan idin siiyo Kuwait, Imaaraadka, Sacuudiga meelahaasoo dhan oo la duqeynayay waa meelo Mareykan ay joogeen oo ay ku dhuumanayeen oo nimankan xogtooda ay hayeen. Riyaad meelaha nagta laga saaray ka mid tahay. waxaasoo dhan carabtaan oo dhan jugtaa laga geliyay. ilaan askartii saldhigyada inta saldhigyada soo baneeyeen ee magaalada soo galeen islaadeen meelaha maladi ku imaanay meelihii inta loogu yimidaa la garaacay. meelaha sida xun loo garaacay waliba Imaaraadka ka mid ah. Dubai la garaacay, Abu Dhabi la garaacay wararkii ugu dambeeyay. marka nin khabiir oo Irani ah ayaa la wareystay. waxaa la yiri maxaa bartilmaameed uga dhigateen halkaas carabta jugta uga gelinaysaan? saldhigyo waaba ku leeyihiin meelo kale sida Turkiga oo kale maxaa u garaaci weyseen? anagu waxay yiraahdeen Turki iyo afaarihiisa iyo hadda ma galayneen. Turki wuxuu ku jiraa gaashaanbuurta NATO. naatana ninkii loo weeraro waxaas annaga kuwaana horta dubanaynaa.
annaga turkiga iyo hawshiisa kale hanoo dambaysay yidhahdeen laakiin nimankan meeshaan maaragtay ku dhuumanaya khaliijka ayaan beerka ka tumaynaa dheen waxa sidoo kale la garaacay meelo kala duwan oo xayfa ay ugu badan tahay oo dekada ah oo iyaduna aad loo garaacay marka warkaasu marka wuxuu sheegayaa in maaragtay ilaalada kacaanku ay leeyihiin dadkaasaasa u leynay maraykanka war soo saaray waxay yidhaahdeen maraykanku iyaguna warkaa ma jiraan macnaha boqolaalna la kama dilina yidhahdeen laakiin wixii laga dilay mayse sheegin sheekada kale oo yaab kale way noo soo socdaan warar badanaa iska soo dabadhacaya sheekada kale oo yaab kale waxay tahay telefishinka aljazeera ayaa wuxuu qoray diyaaradda netanyahu ayaa hawada ku jirta sidoo kale waxaa iyaguna kacay diyaaradihii booyadaha ahaa shidaalka hawada ku siinayay shidaalka kadib markii iiraan ay dukum daakum ka dhigtay meelo badan oo ka tirsan israa'iil muujeedaa gantaalihii iiraan waa la celin waayaa lagu leeyahy markaasay carareen diyaaradihii iyo wixii iyo gantaalihii difaacaya waxba markay qaban waayeen diyaaradii netanyahuna hawaday gashay marka warar kala duwana aa la isweydiinayaa waxaa leeyahay calaa matni daa'ira muu saaran yahay ninkan diyaaradda muu ku dhuumanaya diyaaradda dhinaca xeebta badday u carartay xeebaha israa'iil ay dul taagan tahay magaalada dhan way ka carartay iyo meel kastay ka carartay marka ninkan diyaaradda muu ku baxsay diyaaradda keligeed maa la qaxinayaa asagii ma saaran yahay su-aalo badana marka iyaduna halkaa ka taagan dhanka kale iiraan waray soo saartay waxay tidhi hormus waa xerey markabkii isku soo maraasee u taallaa waa meesha ugu badan shidaalka kala bar adduunka ku dhowaad uu maro waaye oo khaliijkao dhan waxooda ay maraan waa meesha idii sheegi jira waa alxaraa laidin dhihi jiray ciidanka ilaalada kacaanka iiraan waxay idhahdeen meeshaa waa qufula saaranane ninkii isku soo maro maca ameerikaanka baxrayn iyo dhulkan iyo kuweyt iyo ku jira meeshuu soo mari lahaa la iska rabaa sheekadaas iyaduna halkaasay ka tafan tahay oo ay ka xiran tahay dhanka kale aljazeera waxay sidoo kale qoraysaa warbixin ay leedahay xulafada iiraan waxay ka wadaa awlaadeeda waxay ballan ku qaadeen iyaguna inay markaa dagaalka ka qaybgeli doonaan iyadoo awoodaha iyo meelaha ay bartilmaameedsanayaan laga hadlayo waaye xisbullah way hadashay maaragtay xuutiga wuu hadlay nimankii ciraaqiyiintaana way hadleen marka taas waxay yidhahdeen dagaalku meeshiisaa ka maysanayna qolo walba meesheeda ka maysaysaa israa'iil waxay u digtay xisbullah waxay tiri haddaan ugu soo weerarto iska jira marka hawshu ayaduna halkaas way ka qasan tahay halkaasay taagan tahay oo maaragtay xisbullah iyo awlaadii iyaguna halkaasay ka hadlayaan waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a oo aljazeera ay qoraysaa waxay leedahay sheeko yaab lahaa jirtee leedahay maraykanka in culays uu ka qabsaday hawada iiraan waxaa lagu garanayaa ay leeyihiin waxyaabaha soo kordhay oo markaa halkan laga sheegayo maraykankii wuxuu isticmaalayaa leeyahay awal mara maraykanka wuxuu leeyahay diyaarado daroona oo isqarxiyaan ku weeraraa meesha ninkan awoodda sheeganayay hawada ku baashaalayay diyaaradihiisa meeshay rabaan rushaynayeen maxaa ku dhacay leedahay aljazeera maxaa dhacay khubaradu waxay leeyihiin fiihi shay meeshaa waxbaa ku jira diyaarad daroona oo aan soo noqonayn oo isqarxinaysaa soo diraa macnaheeda maxaa waaye kuwii kale waa u baqay waaye marka meesha waa layswaabiyaa lagu leeyahay xaalku masaalan aan idin tuso warka sheekadan laga qoray oo ku saabsan arrintan haddaba telefishinka aljazeera wuxuu leeyahay ciidamada maraykanku waxay sheegeen inay adeegsan doonaan awood cusub oo ay ku weerarayaan iiraan fox news telefishinka caanka ee maraykanka ayaa sheegay sida aljazeera ay qorayso ciidamada maraykanka inay adeegsan doonaan awood cusub oo ay ku weeraraan iiraan waxaa la sheegayaa inay isticmaali doonaan diyaaradaha daroonka ee isqarxinaya waana markii ugu horreysay taariikhda howlgal dagaal uu maraykanku diyaarado noocana isticmaalo waxay leeyihiin khubaradii waa fulayee dheheen maraykan waa cabsaday diyaaradihii waa la soo waabiyey oo maaragtay hadda wuxuu diraa drones isqarxinaya yaa isticmaala jabhadaha xuuti iyo waxaa kan iyo dowladaha waxaasaa isticmaala dadka tabarta daran macalinka weyn wax kasta oo saasaan u dhex maraa saanaan yeelaa waa dul tagaayaa u lahaa ha sheegin wax ka jira ma jiraan aan leeyahay maanta xaaladdu waa xun tahay hadda wixii kaloo isbedeli doona ma naqaano ilaa hadda waxaa leeyahay iiraaniyiinta ku wata
hebela kuwa taba maqli jirin hadda marka waxay leeyihiin nimanka iiraaniyiinta ah ayaa sheekadan ku wataa la leeyahay xaalku halkaas ayuu joogaa marka qodobadaas waa kuwii ugu waaweynaa goordhow xayeysiinta kadibna waxaan idiin hayaa warar badan oo goosgoos ah oo ku saabsan kuwii hadda soo dhacay akhbaar caajila la yidhahdaa waa warar degdeg ah aan idin kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena ku saabsan dagaalka Iiraan Mareykanka Israa'iil waana qaybtii saddexaad barnaamijkan maanta oo musalsala oo mar walba aan soo galayno wararka cusub saa ula socotaan qaybtan dambe waxaynu ku faahfaahinaynaa akhbaar caajila wararka degdega oo kooban ayaanu halkan kusoo gudbinaynaa haddaba warbixino iyo warar uu soo aruuriyay telefishinka Al Jazeera ayaa halkan wuxuu ku sheegayaa ciidanka Israa'iil waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen saddex goobood oo ay sheegeen inay ku sugnaayeen mas'uuliyiin Iiraaniyiin ah haddaba NBC News telefishinka leeyahay ayaa sheegay mas'uul Israa'iili ah inuu sheegay goobaha inay weerareen jaridda Mareykanka ee leeyahay Wall Street Journal ayaa iyaduna goordhow qortay Israa'iil inay markaasi sheegayso in ay malaayiin telefoon ay markaasi isticmaalayso oo markaa loogu talagalay in xaaladda lagula socdo dhanka kale wasiirada Israa'iil ayaa laga mamnuucay inay adeegsadaan telefoonada isgaarsiinta ah haddaba wararka ugu dambeeya waxay sheegayaan in safiirka Mareykanka ee Lubnaan uu sheegay in Israa'iil ay markaa weerari doonin Lubnaan haddii Xisbullah iyadu aanay weerar ka qaadin wararka kale iska soo daba dhacaya waxa iyana ka mid ah boqorka Urdun ayaa sheegay in uu markaasi doonayo sidii xiisada loo qaboojin lahaa ciidamada Israa'iil waxay dhanka kale sheegeen iyagoo qiraya in mawjad kale oo weerar cusuba ay markaa oo Iiraan ay soo qaaday oo sawaariikh ah ay ku soo wajahan tahay 10 daqiiqo kadib meelo kala duwan oo ay Tel Aviv al-Kubra ku jirto heegan buuxa ayaa lagu jiraa Siiriga ayaa meel walba isqabsaday haddaba wararka kale ee cusub waxaa ka mid ah wasaaradda arrimaha gudaha ee Bahrain ayaa sheegtay inay bartilmaameedsatay goobo dad ay deganaayeen in gantaal uu ku dhacay magaalada caasimadda ee Manama qatar waxay dadkeeda ugu baaqday inaysan albaabada ka soo bixin dariishadahana aysan fiirin oo guryaha ay ku jiraan Bahrain sidoo kale Kuwait iyaduna sidoo kale ra'iisul wasaaraha Jarmalka waxa uu si cad u sheegay in Jarmalka aanu ku jirin weerarka lagu qaaday Iiraan dhanka kale wararka kooban waxa ka mid ah ilaa 220 gantaal ayay Iiraan waxay ku weerartay Israa'iil kaliya ilaa saakay sida uu qoray ama lagu daabacay bogga uu leeyahay telefishinka Israa'iil ee leeyahay kanaalka 13 haddaba ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay sheegeen goordhow inay soo rideen laba ka mid ah diyaaradaha Israa'iiliyiinta deegaanka leeyahay Asafhan ayaa lagu soo riday waa war degdega oo ay soo saareen ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan sida telefishinka Al Jazeera uu qorayo inkastoo la leeyahay diyaaradahanu waxay ahaayeen kuwa drone ah laakiin ciidanku iyagu faahfaahin kama bixin balse waxay sheegeen inay soo rideen dhanka kale wakaaladda wararka ee Faris ee Iiraan ayaa iyaduna daqiiqada ka hor waxay soo qortay war kale oo ay leedahay waxa la soo riday 5 ka mid ah diyaaradaha droniska Israa'iil waxaana la sheegay in ay soo daateen howlgalkan waxaa loogu magac daray الوعد الصادق أفر أما بلنتي رنت أهيد إيران أفراد أيا لوغو مقعدري هولقل كان أي سمينيان وأي اسكو دفاعيان إيرانيت واتاي صحابي برنامجكا وراركي ugu weyna wixii cusba wixii hadda soo dhacay inta ku jirnay diyaaradaha la soo riday waxa soo dhan waan idin kugu soo gudbiyay haddii alla idmo markaan soo noqon doona si aad u heshaan xogo muhiim ah oo aan la idinkaga sheekayn xaalku meesha uu marayo ku xirnaada barnaamijyadayda xaqaa'iqa ku salaysan inagoo mar walba idin la wadaagna macluumaadka iyo wararka muhiimka iyo goobihii ay ka yimaadeen haddaba intaan mar kale kulmayno iyo barnaamij kale nabadgelyo